عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. maanta waxaan ka hadli doonaa tensiga tobnaad oo ah future continuous tense. Future continuous tense is used for an action waxaa loo isticmaalaa fal which will be happening kaasoo dhici doono in the future time waqtiga soo socda ee fog. marka kii hore futureka caadiga ah iyo kan waxay ku kala duwan yihiin laba qaybood oo ah b. kii hore futureka caadiga ah b ma wadan, sidoo kale ing kii hore ee futureka caadiga ing lama socdo, marka will kaliya la isticmaali jira iyo shal. marka kan waxaa sii dheeri ah b-dan oo zaid ku ah iyo ing oo zaid ku ah. marka continuous markii la joogo future continuous tense markii la joogo waxaa ku fahmi kartaa qaacidada oo arki doona waxaa dheeri ah b-daas iyo ing-daas dheeri ah. kii kale kaas futureka caadiga ah wuxuu kaga duwan yahay b-daas iyo ing-daas. marka qaacidadiisa aan sii galno formula. qaacidadiisa waxaa waaye subject plus will ama shall plus b plus verb plus ing. waa kaas. marka ing iyo b labadan dheeri ah. marka futureka caadiga markii laga hadlaayo waa soo marnay, hadda inaan sii faahfaahin ma rabo, laakiin waxaan rabaa kaliya waxay ku kala duwan yihiin inaad ogaatid oo ah ing-daas iyo b-daas. marka tusaalaha marka sidoo kale inta kale same waa inta kale isku mid ay ka yihiin, yani I, we, you, they, he, she, it intaasoo dhan yani isku mid ay ka yihiin. waxay waa will iyo shall intaas waa ka siman yihiin, laakiin waxay ku kala duwan yihiin kaliya ing-daas iyo b. okay, statement marka laga hadlaa marka statementigiisa waxaan dhihi doonaa marka tusaalaha koowaad I shall be preparing the lesson in the class. I shall be preparing the lesson in the class. I shall be preparing the lesson. casharka waxaan ku diyaarin doonaa in the class fasalka dhexdiisa. I shall be preparing the lesson in the class. casharka waxaan ku diyaarin doonaa in the class fasalka dhexdiisa. marka waxaa dheeri ah b-daas iyo ing-daas. marka verbka caadiga ah prepare verbka caadiga ah waxaa lagu daray ing preparing. okay, marka we shall be making practice outside the class. we shall be making waxaan samayn doonaa practice wada sheekaysi outside the class. waxaan ku samayn doonaa outside the class fasalka banaankiisa waxaan ku samayn doonaa wada sheekaysi ama wada hadal. okay, she will be cooking breakfast. ayada waxay karin doontaa breakfast quraac. marka waa la fahma umleynaya insha Allah. kulli waxaan filayaa waxa uu talagalay kaliya markan inuu idin noqdo mostly revision. markii laga dhigayo marka question markii laga dhigayo waxa waaye shall I be preparing the lesson in the class. casharka miyaan ku diyaarin doonaa fasalka dhexdiisa. shall we be making practice outside the class. wada sheekaysiga banaanka fasalka banaankiisa miyaan ku samayn doonaa. shall we be making practice outside the class. fasalka banaankiisa miyaan ku samayn doonaa wada sheekaysiga. will she be cooking breakfast. ayada will she be cooking breakfast. quraac miyay karin doontaa ayada. will she be cooking breakfast. ayada miya qofta karin doonta quraacda. saasna waa loo fasiri karaa. I hope in la fahmay. markii laga dhigayo aragno markii laga dhigayo negative diidno markii laga dhigayo. okay, I shall not be preparing the lesson in the class. ma diyaarin doono aniga the lesson in the fasalka kuma diyaarin doono. casharka fasalka dhexdiisa kuma diyaarin doono. I shall not be preparing the lesson in the class. fasalka dhexdiisa kuma diyaarin doono casharka. we shall not be making practice outside the class. anaga fasalka banaankiisa wada sheekaysi kuma samayn doono. she will not be cooking breakfast. ayada quraac ma karin doonto. she will not be cooking the breakfast. I hope ina fahmay insha Allah. ha iloowin fadlan haddaad ka faa'iidaysatay inaad subscribe garayso channelka si aad ula socoto casharada kale ee soo socda insha Allah. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.